Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qodobada bandhigaad ku daawan doonta waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay dabkii ka kacay suuqa isgoyska Banaadir, Rooble oo la kulmay madaxweynaha Imaaraadka Carabta, dadaalo lagu raadinayo xilka ra'iisul wasaaraha oo ka socda Muqdisho, laamaha amniga gobolka Mudug oo gacanta ku dhigay rag geystay falal iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay xaaladda gobolka Gado iyo isbedelada ka dhacay dalka. saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan, fadlan haddii nagu cusub tahay nagu soo bir page-keena follow dheh, YouTube-kana subscribe noo saar, ku mahadsanid. aynu ku bilaawno. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xanuunka la qaybsaday dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay dabkii xalay ka kacay goobaha ganacsi ee isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. waxa aan xanuunka iyo dhibaatada la qaybsanaya ganacsatada Soomaaliyeed hantidoodii ku gubatay dabkii xalay ka kacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho kuna fiday goobaha ganacsi ee u dhow. musiibadani dabka waa mid ka mid ah arrimaha noo wada baahan maareyntoodii xilligeedii iyo halkeediiba waana gaari doonaa, ayuu yiri madaxweynaha. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in musiibadani dabka tahay dhibaato u baahan in si wadajir ah loogu shaqeeyo maareyntoodii, waxaana uu tilmaamay in ay ka shaqeyn doonaan sida xal loogu heli lahaa. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Abu Dhabi kula kulmay madaxweynaha dowladda isku taga Imaaraadka Carabta Sheekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal, isagoo ra'iisul wasaare Rooble ugu tacsiiyay geerida Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Imaaraadka Carabta Sheekh Khalifa bin Zayed. ra'iisul wasaaraha ayaa madaxweynaha cusub ee Imaaraadka Carabta Sheekh Mohammed bin Zayed gaarsiiyay dhambaal hambalyo iyo tacsiye ah oo uga siday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaciisa, madaxweynaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay doorashada madaxweynaha Xasan Sheekh ku soo baxay